yaa arrimahan qaran Soomaaliyeed burburiye yaa mas'uulka oo burburiye waayo haddaan la isla garan de halka qoonku ka bilaabmay iyo siduu yahay haddaan la isla garan waxba inoo hagaagi maayaan haddana waxba inoo hagaagina de marka in la tashado reer walba meeshuu marayo ku xabashi raaca ku Djibouti raaca ku badda kala gala ku Kenya raaca de in la isfasaxo la kala tagad iyo noqonaysa haddaan runta lagu wada hadlo anu waxaan qabaa iyadoon aanan dhammayn karin maanta in ay jiraan meelo loo raaci karo dhibaatada wadanka ka dhacda waxa ugu horeeya dadka qaranka jabintiisa iyo kala tageenna waxa ugu horeeya kow aan oran karaa community-ga anigu aan ka yimid ee waqooyiga Somaliland British Somaliland orange ka yimid oo siday doonaanba ha u tashadaan ay yiri annaka nama khaarajinayso jamhuuriyaddii nama khaarajinayso bal Soomaalida kale ballaaran hay noo dambeysay walaalkay oo ka hadlay hay noo dambeysay jamhuuriyaddii nama khaarajinayso waan baxaynaa annagu marka waan baxnay nabadgelyo wixii kale isku darsanayno waa halkayga laakiin laba dawladood oo kala gooni ah ayaana xuduudkina waa deegaan gumaysigu Somaliland loo oran jiray sidaas aan ku baxnaa nabadgelyo de markaad sidaa tiraahdo qarankii waa dug baad gaarsiisay waa iyo wadajirkii Soomaalida waa kow halka waxa taala eed baa taal waxay eed u taalaana de iyagu may oran inta ummadda Soomaaliyeed u digeen may oran dhageysta Soomaaliyeedna maqla waa jamhuuriyaddan ka hadlaya bal inta kale ay noo dameyso annagu arrimaanu tabanayna kow laba saddex afar baanu tabanayna sidaasaananu u macnaynayna in wax laga qabtaan doonayna waqtiga caynkaasna in wax lagaga qabtaan doonayna haddii aan wax laga qabanna iminkaan idiin sheegaynaaye dee cididan nagama lehe waan dhaqaaqnay ogaada at least intaa in la yidhaahayd lama odhan waa la dhaqaaqay halkaa markaa naafo weyn ayaa qarankii ummadda Soomaalida ka gaaray waa kow oo the civic life kan ka hadlayay de markaa waa la kala tagay yaa kale ka mas'uula waxa kaloo ka mas'uula dadka calanka haysta ee unionistka calanka haysta ee xamar fadhiya particularly meelo kalena way joogaan laakiin xamar fadhiya calanka haysta calankana haysta xisaab yaro kalena hoosta ku wata oon qaran iyo waxba shaqo ku lahayn hoosta ku wadata qolooyinkiina baananka iyo Cabdulqaadir oo kale iyo accounting ka shaqeeyay kelmadaad leedihiin la yiraahdo inside trading inside trading يعني unionkiina waan hayaa laakiin xisaab kale ayaa hoosta ku jirta marka dadka Soomaaliyeed ee wali calankii haya oo xarunteeduna ay Muqdisho tahay khasaaraha wadanka gaaray ayay kamid tahay iyo jabnida gaaray waayo waxa weeyi dana calankii baa laga sitaa dana hawla kale oo calanka shaqo ku lahayn oo qabiil ugu horeeyo ayaa ku jira anuu runtaan idin sheegay soo degan at least sidaan u arkayo de haday maxaan ku rahaayay you feel itchy too bad wa nasiib daro but I have to say this anu xamar waxaan ku soo arkay xamdina ay marxaati ka tahay calankii oo la sito oo haddana la leeyahay wadankan waxa madax ka noqon kara amba qof daarooda ama qof hawiya inta kalena waa second class citizens walina sidaba xisaabta oo mayna wada hadal waayo markaad sidaa u hadasho waxaad xoojinaysaa dadka doonaya inay unionkii ka baxaan oo iska tagaan anigu waa Gibli meel la yiraahdo ka mid ah Hargeysa u jirto 30 mayl haddii sidaa lagu hadlayo xamar maxaan ka qabtaa xamar you have to leave waana markaa Hargeysa tagaa soo aad garmaysid xisaabtaana sidaba wali looga mooda xisaabtamin hoosta se waa laga wada ogyahay that's what I mean by inside trading oo xamar ku soo arkay daarood iyo hawiye oo dhanna ka tartamaya dhana leh haddana anagu deebtan helo tan kala adaa iska leh sidaas inta kalena Soomaali weyn la leeyahay ma soconayso it just won't happen so the garmis halkaasina taas aniga waxay ii tahay campaign cusub arinta inaan galo kuma xumaynayo walaalahay oo daarooda xamdi iyo Cabdulqaadir waa ayad
and they are the major supporters. And there are many others Hill Qaran ku jira. And the same thing with the Hawiya community. So at the government, dadweynahan kama hadlay waxaan ka hadlayaa political class ya dadka siyaasadda ka dhigtay shaqada ayaan ka hadlay dadka Soomaaliyeed daaroodka iyo Hawiye Soomaalida kale la qabaan gaajada iyo faqriga iyo nabadgelyo la'aanta iyo cudurka iyo biyo xumida waan soo arkay 650,000 ayaan ku soo arkay dabaabon cid ugu tagin cid kale qof madax Soomaali ama madaxnimo doonaya ama madax noqday ugu tagay meesha ma jirto waa inay joogeen 20 sanadood oo qaar kood baa ku noqday ayayooyin iyo maxaan ku rahay iyo awoyaal ku noqday soo garmays marka waxaan ka hadlayaa ifahma waxaan ka hadlayaa waxa weeye political class tabaqada yar ee siyaasadda shaqada ka dhigatay oo dhaqaalaha iyo siyaasadda isku xidhatay taasaan ka hadlayaa laakiin dadkii caadiga ah Soomaaliyeed meesha doonaan ha joogaan whether they are in Galkacyo or Boosaaso or whether they are in Hargeysa or whether they are in other places gaajadu waa laga siman yahay iyo faqriga iyo aqoon darrada iyo tacabkeena haysto laakiin waa dadka siyaasadda ku jira marka aniga ajenda cusub ay tahay arinta horta inaan qabo soo dhammaatay waan ka daalnay waxaan af Ingiriisiga ku yiri duopoly monopoly waa company qura wax walba leh monopoly duopoly waxa weeye laba company oo wax walba leh ya marka labadan company ee Soomaaliyeed wax walba waxaan sheeganaya ma soconayso it can't waa inuu ajenda kala sameysanayo si kale oo dadku ku kala baxaan oo doodu ay ku kala baxdo waa in sameysana hadii kale albaabadu way naga xidhayeen taasina waa tii unionists waxa soo raacay oo aad iyo aad anigu aan u arkaya in iyaduna dhibaato keenayso Abdulqaadirna hadalka afka wuu ku dhuftay and he is right in dad la soo baxay noocyo walba leh oo meel walba jooga Somali Republic wixii la oran jiray oo la soo baxay in wadanka la sii kala furfuro oo la sameeyo what I have called tribal mini states in la sameeyo imaka maraya 30 in ka badan wax magacyada ma maqalnay 30 in ka badan hudaalka aniga xamdi aanu deganina headquarterka noo hayd dad wanaagsan baanu kula kulan laakiin waxaan soo aragnay inta madaxweynaha ana gobolkaas madaxweynaha u ahay ama gobolka madaxweynaha qofka oo ayaan la tartamayaan doonaya madaxweynaha u noqdo waad yaabid inta madaxweynaha horta kelmadaha qaar kood wadanka Soomaalida haday lacag ahaan lahaayeen inflationka ku dhacay cidimay qaadateen da waxa kamida kelmadda presidentka madaxweyne inflationka ku dhacay waad yaabid waa sida professorka oo kale professorna waa la wada sheegtaa soo hadamaad marka wax badan oo sida wada qiimo dhacay oo inflation kaasi ku dhacay waxa kamida waxa keenay in wadanka la sii googooyo these tribal mini states Abdulqaadir ka hadlayay la sameeyo oo waliba inta soo socotay u sii haleelaysa oo xitaa kuwa imika jira doonaya inay sii googooyaan ya ayaa iyadana ka marxaatiya sababna oo keenayna burburka ummadda ilaa maanta haysta waxa soo raaca 4.5 dan haddaad ka eegto dadka qaarkii waxay ku oranayaan waniyo khayr yar baa ku jiro ummadii Soomaaliyeed dadkii qarsoona submerged dadkii qarsoona ayay u siisay inay helaan in la arko oo ay soo fadhiistaan miiska and there is some logic to that laakiin markaad xisaabta buuxda saartay qaranka dhismihiisa waxay noqonaysaa in dib loo xalaal laga dhigo waxay naga xaraana oo ah in dadka sida loo kala saaro waliba inta la kala saaro in la yiraahdo qaarna way buuxaan full qaarna waa nus in laga dhigo anu waxaan ku yiraahdaa dadka inoogu ilbaxsan and I'm willing to make that argument waliba markay timaado skills ay timaado dadka Soomaali ugu ilbaxsan taariikhiyan waa dadka banaadiriga leeyahay way jiraan magaalooyin yaryar oo saylac bari ay ahaan jirtay waxaas way jirtay laakiin degmahan marka la eego dadka banaadirigu waa dadka inoogu ilbaxsan dadka inoogu shaqo badan ee hawsha wada ee 24 saacadood shaqada qabanayo waliba shaqada Soomaalida kale ay ka faanto qabanayaan waa dadka la yiraahdo jareerta labadaas sunada wax albaabkaas lagu xidhay madaxweyne ma noqon karaan waan soo aragnay xamar ya lagma tirinayo iyagoo codkoogii waxa la kala qaadqaato moogiye albaabkaas sare ma soo gali karayaan they can't soo dhamadkan marka 4.5 na waxay dhalisay uqdada cusub
iyo in abaa dembi laga galo anu dadka aan qabo inay yihiin dadka Soomaalida ugu ilbaxsan oo banaadiriga on soo arkay dad guryahoogii oo yaala magaalada Muqdisho anu hormarnay u leeyahay inta sekada markaysa ana reerkayga family-ga hooyada iyo aabbahay baa dhis laakiin cid kale ku jirta and you dare not go there and say this is mine so the government marka 4.5 waxay keentay in inakana ayna kala qaybiso ay ina geliso inteenan way buuxda la leeyahay ya false maxaan ku dhahay confidence nin rebel wadano rebel baana ya ay geliso dadka kalena ay ka dhigto second class citizens ayayna geliso taasina waxay ka mas'uul tahay qaranka burburkiisa iyo baabiisa oo cid qaranka ala hadlaysa arkamaysid waxaan bal ku soo hordhigi markaad sheekaysanaysan aan u gudbo arrintii dawladdan iyo waqtigan inuu cusub yahay in kale aan soo gabagabeeyay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxda uu ka yahay daadeedu way yartahay wali waa 6 bilood although that's very important 6 months is important lakin relative time waa marka in critique aw xakama yeesho waa important oo de intay soo baxayso iyadoo buuxda warkeega uu soo baxayo in laga dhigo edeb loo yeelo hadalka oo lagu qiyaaso waqtiga waa important laakiin waynu haynaa haddii maxkamad la joogo enough evidence ina siisa waqtigan imika aan joogno inaan gaadhno conclusion ku meel gaadh ah in la gaadho ya tentative judgment inaan samayno aan waxaan qabaa in la gaadhay marka jawaabteedu waxa weeye maya waqti cusub ma jawaabteedu waxa weeye waqti cusub ma haddii se la sii xoqo waqti cusub waxay ku tahay de madaxweynihii Shariif ayaa shaqadii ka baxay Xasan Sheekh baa bedelay oo laba qof oo kala gooni ah yes at least at the level of immediate appearance arag waa laba qof oo kala gooni iskuma eeka maxaan ku lahaay wajigooga iskuma eeka siday u hadlaan iskuma eeka waa kala gooni so in that sense waa waqti waa wax cusub dawladda la dhisay haddaad sidaa u eegto ساعد برامج سركي هراء عبد الولي دكتور بروفيسور عبد الولي وكدوين هاي واحد لكن ده هالكاسي ده وهالك عرورته كعيار يسوي يد فرق عين كاسي هالك عرورته كعيار يسوي وين دعدا هذا دون سدين تسميسو very clear distinctions جوابتي مركب وحنو لا هاي مايا وقت عصوب معها so far واتن أسبابتي كو أنا حسن وانا قانا ما الناس سووا ذكرين أنا probably شن لحسن نضاد ويجري هاي ما الناس سووا ذكرين هراء أدسكم ما الناس كقول وحن حسن ولي جاي لكل ما 2010 يعني عبد القادر الشروين وجيبوتي أن كقيب قالوا سيديت قفلة كاني I was chairing and أنا كاها قدومي شركة تضمن عشو السعودية عرمات الصومالية اللي قاعد لي بايع مشتركي ومشايخي متعلمين ضد حقوق للسكون كاني ميول بكي يمد هرقيسة كي يمد بوساسة كي يمد بيدبا كي يمد مقدشة كي يمد كسماعية كي يمد ميلا بدن كي يمد مركز تذكر كجري وانا أكثر سنجري in fact I remember now سجى حسوسي ويكفر سنة 2010 هل كاسن سكبر الناس السلام عليكم سلام عليكم يا مكان وحن لكن اسبر الناس حمر كان بين كمركين اللي جري أنا وحمر مركان تجي بشي ماي تبيا قضية دي تجي أيانو اسبر الناس حزب جاهل قرني حزب جا حسن مركا أو أبورية إن أو أبور ماي مركا إن لا يسكدر وين نقدم بيين إن لا يسكدر أيانو إن بدن كوضع هذا الناس وح بدن بين لبده حزبي وداعن أيانو سكبرن حسن انت كوقان ونين ادبله دد نمدي سنه انت كوقان وناكسنتay انا لixda biloodan isbaranay intaasan ku arkay ادبله dad نمدي سنه wanaagsantay humble in many ways ayaan ku arkay
laakiin de taasi waa madaxweynenimada taasi sida u soo galayso ayay doodu noqonaysaa say u soo madaxweynenimada soo galayso xasan anigu ilaa imika ma hayo wadooyinka waan dhisaynaa ummadda Soomaalida ha heshiiso arrimaha hadalla caynkaas waxa way ka soo baxeen dan waxaan qabaa taasi vision ma ahde ardada yar ee jaamacadda u dhigay first year-ka ku jira ayaa statements caynkaas sameyn kara waana la sameynayay for the last 20 years the shariifo inta uu sameynay hadalka uu sameynay vision ku deemaha statement yaro caynkaas sameeyay vision ku waa tan idin sheegay waxa weeye hadal ku fadhiya mustaqbalka aad arkaysaa sida uu eeg yahay waxa laga fiirsanaya inaan loo dhawaan waxa lagu ordayo sida loogu ordayo iyo adigu halkaad ka galayso orodkaas as a leader that's what it is vision kama hayno ilaa maanta hadda qofkii hayana banaanka soo dhiga laakiin hadal de iska declaration statement yaro caynkaas iyo way jira vision kaasi noomu soo dhigin ya wax sidaa noo soo jiito qof waloo Soomaaliya King County miyaa degantii ya Soma good King County dadka degani ay had iyo jeer ku sheekaysanayaan xafaday doonaan ha ka yimaadaan daadoodu intay doonto ha noqoto aqoontoodu intay doonto ay ka sheekaysanayaan because it is compelling what garanaysan 2008 Obama markii uu campaign-ka ku jiray ya sidaas la wada noqdo what garanaysan habeenkii markii uu doorashada helay Chicago parkii ugu weynaaba la isku yimid oo garanaysan dadkii cadaanka ahaa ee waxba isku ahayn madowga nacba yani category ooyaya what garanaysan ooyaya vision that's what vision is it was there meel Somali ooyis show me in these last 6 years meel Somali inta istaagtay amba dhalinyaro jaamacad ku jirta noqoto amba dadka istaagtay oo ooyisa it was there I haven't seen that marka wadanka gudihiisa visionku waxa weeye wadanka gudihiisa inaad macnayso waxa ka taagan oo dadka Soomaalidu marka sida ay noqdaan oo xitaa kuwa ku diidan ay dhahaan I have to think about this warninkii wuxuu yiri maanta ma ogtiin awaana waxaan ka fiirsadaa hadda kuwa ku diidan kuwa kalena hadalkooda taa inta badan soo jiita wadanka gudihiisa xaqaaqiq ka taagan intaad fahamto ya inaad ka soo saarto policy ya ka duuda 20 sanadood iyo wixii ka badnaayna soo maray anoo kula talinaa arintaas waan kula talin tan u tagnay ana qoray warqad group aan kula talin sidaa dadkii aan doorashada ku wada jirnay intii waaweyneyd la lahaa waa heavyweight cadow farmaajo cabdiwali cabdi baadiye cabdulqaadir cusable group dhan caynkaas waan sargo sidaa annaguna waan ku taageerayna haddaanu dadkii kula tartamay but think about this in a code laba saddex okay why we haven't heard anything marka internally wadanka gudihiisa sida loo xaadayay dadkii la iskugu soo celinayay 3+3 aan ka hadlayay wax looga qabanayo ma hayno ilaa imaka vision caynkaas siyaasadii dibaddana hadalkeega badaa ya siyaasadii dibaddana hadalkeega badaa safaradii Soomaalidu ma jiraan as a presidential candidate I did research on this waan soo ogaaday safarad walba halkay ka furan tahay ta furan ta xiran dadka jooga waan soo ogaa because you have to do that research haddaad madaxtinimo wardiso iyo hadhow waxaad rabtaa inaad waxa dib u dhistee safarad Soomaaliyeed oo maanta shaqaysaa ma jirto way jiraan meelo dad joogaan qaarkood ay ka soo haleen zaman qadiim Soomaaliyeed la iska jooga meesha oo ay daateen waad garanaysaa wixii Italy Roma safarada Soomaaliyeed waa ta journalada laga soo saaray siday noqotay haddaan idin ka sheekeeyo Washington safaradena ku lahaan jirnay waxay ku dambaysay ee gurigii la iibiyay ee dawladda Mareykanku tidin lacagtii dawladda waxaan gelinaynaa escrow ya markaad safarad dad dhisataan ayaan gelin waayo dadkii deganaa degmada safaradu ay xafiisku ka furnaa ayaa dadkii la hadlay dawladdii yiri way qoruntay meeshan Mareykan waa taqaanaano waa location intiina real estate ka taqaana haddii gurigaagu meeshu ku yaalay xaafadda ay xuntahay gurigaagu haddaad malyan geliso hoos buu dhacaya safarad Soomaaliyeed maanta shaqaysan ma jirto dadka jooga intooda badanna waxa lagu geeyay 4.5 xamar markaan joogay doorashadan ku jirnay horteed yar safarad baa laga furayaa baa la yiri Turkey Ankara
waxa la isku hayay war safaaradaas sideen u dhisnaa maxay noqon doontaa hawlahaas la qabanaya lagama hadlayo 4.5 haddii uu noqonayo safiirku reerka waanu reerka noqdaa ku xigeenku waxaas la isku hayay markii dambe waxay noqotay Shariif Axmed iyo Shariif Xasan inay isku qabsadaan safiirka qofka noqonayo waxaan isku qabsadeen waxa weeye labada 4.5 halka ka soo jeedaan qofka ka soo baxay inta kale hadalkayga badan سفارة سومالي سياسة دي بدنا مال ما أنت أي تاجن تهي ما جرت حسنا الله ما أنت بناك مو صادق كل كده وقت جي أراس كمود ما له وحل جوجا وقت جي الحساب تمي يا كل كسو يا سود وهذا final point أرنتن competence vision كواتن competence كرتي تولد الأوديسي حسن الساعد ومدحنا كي هي أنا ساعد عاد كما نقانو رئيس الوزراء markii ugu horeysay looligii la kulmay Nairobi bay ahayd oo la iskaayo baray gurigaysa igu casuumay isaga iyo xaaskiisa gabadh aad u fahmad badan caasha leeyahay oo baarlamaanka iyadoo nimka ku jirta campaign-kana uu soo galo waan galayaa buu markii dambana uu ka joogsaday marka xamarna waan isku baranay in muddo isagana waxaan ku arkay shakhsiyadiisa qof maamuus badan sharaf leh edeb leh naxariis leh waan ku arkay and that's important laakiin dayla imaka ma hayo ra'iisul wasaarenimo qaadade waa heavy lifting qaadade alaabta miisaanka ma hayo hadalna kama baxa inabade iyo sidaas ay noqonaysaa hawlu waa sidaa iyo sidaa ya kama hayno waxa la 4 bilood baa la maraya waxna qanciya ya executive officer kii Soomaaliya dawladeeda he is the executive officer distoorku taasoo dhigaya haddaydan akhrin distoorka akhriya waxa weeye ra'iisul wasaaraha quwadda xoogeegu iyo administrationku waxay saaran tahay ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa ma hayno waxna qanciya ma hayno hadal buuxaba kama hayno iska daa wax kale deetana dawladii baa la dhisay waxa la yiri dawlad yar baan dhisnaa heel qaran mabda ayagay ku jirtaa dawlad yar oo waliba aanu cayinnay tiradeedu intay tahay inkastoo dadka madaxda noo Cabdul Qaadir ka mid yahay ay dood badan dhex marto ma 9 bay noqon ma 10 bay noqon 12 wasiir waxaas ay doodayeen laakiin halka in la dhaafo oo taa waa noo qolnahay way 10 wasiir baa la sameeyay good at least tira ahaan way anagu waxaanu aaminsanahay haddaanu heel qarannahay shilinkaad heli kartaba